عليكم صاحبي الملوبة أشوفتان يوتيوب كأن نقدر ونسوا ضيح أوفيشال ضيح وحلنا كسر دو جروي وقتي وكسر بجماي واحد أحد وقتي أن سفر كيس لو ديار جروين أو دت غيب سكحنون صاين غيب أن الأوجين أنا وتاس كعضو دارنا هاي نعاو حنوس من السودوير وحلا كسر دو جروي تأمرك كوجو رئيس صاحب وحشرفنا أو وحلا سيسن كنا أيسن شرين بقى إن أنا رجعت تجروي وحوي وقتي كان أكو قادنا سو وحرجينا إن مرة بدن إن نوصل نقول دونتيد أو نوصل لما دونتيد هذا كحبة كل رمايو صاحب بدن بتشوجه أو يقدم بيننا وحنا ليه هاي شرف وحياة إن نعاوز نعتقد هاي إنه ما أوفيشال دراع أوفيشال دراع أوفيشال وأي شرف ولكن أبين أوفيشال إلى من حرست ملك موجين لا حقينا كده وده بولا لو يدينيا صاحب مع المرة لبعض مرسد حاد بوحن كلية كسودو هالكن ده بدن بقى كسودويني أو تشوجه شرفتها يملقها لو كسودو وحرتشيني أنا كسي تشوجي دونتيد أحوي مرة بدنا تنوصل له هذه مرة لبعض مرسد حنا تسودو هذا أنت تسودوين kusoo dhawow Puntland iyo caasimadda Puntland Garowe soo dhawayntii dayax waxay ku soo aadantay yani waqtigu Garowe u yimid diraaco naga xanuunsan waa hogaamiyaheena iyo dhamaa xanuunsan marka anagu xumaanu qaban karin caawa surprise kan adag kugu tala galay waana dareemaya inaad baqaysid dadkaas oo dhan aniga ka dareemaya kusoo dhawow marka dadku jecel insha Allah horena waa u sheegay waxaan rajaynayaa inaad noo xiisi doontaan reer Garowe wallahi gobbay ahaayeen waa kan anagu fanka jecelahay marka ku soo dhawo war kale Garowe aad badan maasantiin bismillaahir rahmaanir rahiim in ma adeeyaal waa in salaam meel walba joogtaan maanta hadii ilaahay idinkeeda leeyahay barnaamij kale ma wadno waxaan inii wadnaa dayax caadi ah hadii ilaahay idinkeeda leeyahay oo aanu leenahay Garowe ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar lixaad hadii ilaahay idinkeeda leeyahay magaaladan hadii ilaahay idinkeeda leeyahay waa kaaga soo horeynay kaamadii miyaad wixii dhigi jiray warka dad baa soo dhameeyay waxaan ku dhihi lahaa dayaxow ku soo dhawow Garowe waa magaaladaadii aad baan uga xunaa inaan maaragtay aanu magaalada kooneeda kugu soo dhaweyn weyno laakiin waxa noo suurta gashay ilaahay noo suurta galiyay inaan maaragtay magaalada gudaheeda inaan kugu soo dhaweyno sharafta taas ah aad badan maasantiin saaxiibkay dayax mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan leenahay ku soo dhawow Garowe ruuxantu kaga soo horeeyay laakiin in badan kuma dhaano anaguna galkacaya ka nimid aduguna halkaas Hargeysa oo markii koowaad baa u maleynaya markii garsaadi ha aad iyo aad ku soo dhawow gacmo furan ba ku soo dhameeyna dhamaantood baad maasantiin caaw waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaalkay dayax tan waa lagu soo kala horeeyay dad badan baa sheegay anoo reer Laascaanood ku soo dhaweeyay reer Mudug badan baa ku soo dhaweeyay dadkii reer Garowe waxa u maleynayaa dadka meelaha kale ka yimid uga badan soo dhaweynta markii hore diraac wuxuu sheegay inuu ilmo official teen inaguna ilmo cirbaanahay dayax iyo waxaan kala nahay marka si gaar ah ugu soo dhaweynaya saaxiib maadaama isku haybnahay aad iyo aad soo dhawow kuleeyahay Garowe ku soo dhawow cid kasta isku bahbaynaano aad iyo aad isbedin hay hadalka wada maasantoora halka waxaan ku soo dhaweynayaa caawa walaalkay dayax ku soo dhawow Garowe hadalka waxba badin maayo dad badan oo dhiman yihiin mar labaad mar saddexaad soo dhawow aad badan maasantoora maanta waxaan halkan u taaganay dhamaantayo maxaa la yiraahdaa walaalkay dayax dad badan way soo hadleen hadallo badan way soo dhaheen maxaa la yiraahdaa dayax waxaan ku leeyahay anu marti kuma maxaa la yiraahdaa Garowe laakiin maanta adiga ku martiya waxaan ku leeyahay brother welcome to Garowe hadalka sii badin maayo my brother aa gudbinay anigii waa lamaanay qabadhaxda u galay waayahay maanta waxaan soo dhaweynaa kulli horta soo dhaweynaa waan taagnayn laakiin halkan waxaan ka dhiibanayaa caqdada aan qabo dadkii maxay halkan wax ka qabanqaabinay sababtoo ah in maxay lamaanayaasha kala reeban ma ahayn lamaanayaal kala horeysiinay baan arkay oo kala hadlayay koodhe wala maxaa dhacay waxba soo socotaa isugu waxaan halkan ku soo dhaweynaa anagoo isku duuban walaalkay Maxamed Cabdirasaaq Jaamac dayax oo leenahay brother ku soo dhaw Garowe mar koobaad iyo mar saddexaad ba aad baad maasantii walibana waxay farxadeen in laba lamaane dhexda ugu jiro adigoo qoslaya oo laakiin naxsanayn kulli habeenkii horeysay oo ku arkeen waxa wada yar naxsanayd meeshu meel caadi weeyaan abaqin laakiin gabadha dadkarbay ka qoslisa oo ku tababaray meel halkan oo maxay waxa la yiri dayax marka la marayo saddex jeer baa lagu wareegay laakiin shuruudii kama soo bixin la hadda meeshan oo ku wareegay wallahi caawilaba ku wareegay wallahi markii saddexaad baa haray marka waxaan leenahay xagaasoo labigu wareejiyay xalay caawinay markii saddexaad aan israacnay soo dhaw brother horta caawani
waxay farxad ku sheegay dayaxo inaan kugu soo dhaweeyo gobolka Garowe because ana kaaga soo reeyso maaha walaa way farxad walaalkeen ku soo dhaweeyo mar walba inuu soo dhaweeyo kala midnin laakiin haddana asaasiti waxa lagu leeyahay soo horeeyay soo dhaweeyo ku soo dhaweeynaa walaalo welcome to Garowe qaade waxaa soo dhaweynaa walaalkay dayax hadalkii badnaa oran lahaaba aan rag hore aga dhameystay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba welcome to Garowe aad iyo aad farxad noo tahay inaan saaxiibka dayax ku soo dhaweynaa bismillaah raxmaan raxiim waxa uu ku soo dhaweynaya magaalada Garowe walaalkay dayax ku soo dhawo walaal magaalada ummadda Soomaaliyeed aad baad maasantay magaaladan lama kala lahayn waa loo kala horeeyay kuna soo dhawo boowe macaan aad baad maasantay baayo ay boowe waan argos tama السلام عليكم وأنا سلام دمانتين مد الصومالي مير بكو جعلت دونك تعليت أكو شوكتان هذا الكل من مربي يقول دقيقة هلا يا بين هاي وعالم بالي أنت أكيد ما أنت وحنا هالكل نتشاجرنا هاي حفلة قروح بدن صاحبين تاو ناكسن أصحاب تنفرح بدن هالكان سوق تيمي وحاول تاجين ما أنتين سودويان ولكن محمد طيح كسودو قروي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ضيال عاوح سودوينا ولكن طيح وحنا كسودوينا قروي أنا أقول هذا كذب يعني marti ma ku nihin Garowe sababta martida 2 saac ka badan haday magaalada joogto anaga marti ma xisaabsanin saaxib ku soo dhawo ku leenahay magaalada yani waa magaaladeeni anaga noo taada ku soo dhaweynaa hadda mar 10aad iyo mar 12aad bi soo dhawo aad baad maasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تقاليقة دمانتوا والسلام ميل كستو أجوكتين ما شاء الله هرتا أني لفتركي سبرايس بيقول هاي سودوينتا ولالكي هرتا وحن آدل كوغا مهد عني أصحاب رير Garowe واي ودد آدو في عن ما شاء الله ومركز سبرايس يكرس أنا نو أسكتش على دتك سبرايس كينا ينو مركا إدلاوي في عين وحا إدي شيء يا دتك سبرايس بحيي دتك هدية بحي لبض بواجعلا يا مركا كل مركي قفك سبرايسك كسي يمركو هديتك كسي لبضب واجعلها سلسلة waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin qof aan halkan ka ilaawi karin walaaladii dhamaantood walaalkay diraac iyo walaalshay Sundus Moohan Cabdirasaaq asxaabta dhan adiga ma soo koobi karo dhamaantood horta waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin sida quruxda badan ee Garowe nagu soo dhaweyseen iyo sida quruxda badan noo dareesiiseen inaanaan cidnoonin iyo inaanaan caajisin aad baa idinka mahadcelinayaa hadalka kulli waa la yiri saasina ugu sii dheeraado ma rabo laakiin walaalkay dayax waxa ka codsanaya hal hees halka hees waliba heesta waa garanaysaa heesta waxa weey wadan ku sii sheegana anigoo dheer jiran garanaysaa waliba sida u gelin saxda wad garanaysaa way wala jibinaysaa laakiin shardigu waa taa waxaan aad iyo aad wallahi ugu faraxsanahay in dhammaan reer Garowe ama reer Puntland oo dhan ay dareensiiyeen kalgacal walaaltinimo dhamaantood baan igoon kala qaadayn waxaan dareemayn dhul kasto aan tagay oo dhulkayga yahay mahadna waan idinka wadnaa taa oo aad iyo aad baad u mahadsantiin baan idin leenahay anigoo soo dhaweynteedii ay maanta caaw ahaan igu soo dhaweeyeen iyo tiimkan iga soo horeeyay iyaguna si qurux badan loo soo dhaweeyay labadoodaba waxaan aanan ilaawi karayn marnaba sida quruxda badan leh ee walaaltinimada iyo kalgacalka iyo muhibbada ku dheehan tahay mar kasta ay noola jiraan ay noola socdaan run ahaantii marnaba ma ilaawi doono haddaan Hargeysa qabtay iyo haddaan meelo kala qabto dad qalbi wanaagsan walaalnimo iyo ixtiraam iyo kalsooni leh dhamaantoodba markaa wallaahi caawa anigoo aanan ogeyn oo aanan waxa ka filanayn oo caawo dhan raadinayay aniga iyo rag xaqani waxaan raadinay sharaabka baawarta la yiraahdo ayna caawo dhan raadin markaan si albaabka uga soo galno waan nahay run ahaantii wallaahi aad iyo aad horta aad baan ugu faraxsanahay inaad Garowe ugu soo dhaweysaan walow Garowena aanan marti ku ahayno de abti leeyahay waan ku faraxsanahay in aan abtiyaashay soo booqdo oo soo barto waxa idin leeyahay idinka geysan heesta ay Salmin naga dalbatayna haddii aanu qaadno haddii ku diida ka kaga macnaysid
dabacsanida hadalkiyo deganaantu inan yahay waa waxa dareenkiyo nafta damcageliye kaga doortay qayrka dugsi dhaxanta celiyo dawadayda inay tahay adigoo daldheer jiran halkan ka dareema salma waan ku jecelahay run ahaantii wallaahi dee waxaan la taagnaan kari laayahay waa farxad iyo dee iyo cabsi waa noloshayda markii ugu horeysay naxo ayaan isaro karaya salma video kaste maxaa noogu sheegtaa inay surprise jeceshahay waxa naga dalbanaysaa hadiyad anuma ku sheega anuma ku sheega saddex magac ilaa dhuuni baa la dhahaa dhuuninimo way dhaafteen kabtan dhuuni baa la dhahaa war inta ma rabto wax kale surprise-ka maxaa ku jira aad baad u mahadsantiin dhammaantiin insha allah xafladdan way noo sii socon doontaa baan jeclahay